halkan waa bartamaha magaalada Beledweyne sanadihii ugu dambeeyay waxaa hareeraha wadooyinka ku soo badanayay ganacsiyo kala duwan oo ay sameysteen dad u badan danyar si ay ugu maareeyaan nolosha qoyskooda. Telefishinka dalka News TV ayaa maanta waxa uu ku booqday qaar ka mid ah ganacsatada ku iibiya dharka hareeraha wadooyinka magaalada Beledweyne, waxaana ay ka warbixiyeen sida uu yahay ganacsigooda iyo sida ay ugu maareeyaan nolosha qoyskooda. ما شاء الله ganacsigan maalmahan waa inta roob yahay alxamdulillah aad baan ugu dhaqanahay ma sha Allah. inta badan dadka waxay iibsadeen magaalada Masamiig meeyay u badan yihiin maadaama ganacsigan darkan ku ganacsato sidee baa noloshooda ugu maareeyay wala aad iyo aad ugu maareeya ma sha Allah inta in ka badan oo filaa waxa kula talin lahayd hablaha sidoo kale inay ku soo biiraan ganacsiga aad iyo ugu soo dhaweyn lahaay kulay qofkii daruuf ay soo garan ilahay waan ku soo dhaweyn lahaay walaalaha muslimiinta waxa uu baaqalay horta ma siiin maanta booqashada aad inoo soo booqdeen waqti waa wada roobaad meesha maanta waa meel oo roob ilaahay nimca ilaahay waay inaan wadadan ku ganacsanayn inay naga hagaajiyaan aan ku codsanaya dharkan waa ka ganacsanaa ilaaha noogu nimceeyay iskuulaan ka bixinaa dugsiyaan ka bixinaa biyaan ka bixinaa ijaaraan ka bixinaa alxamdulillah nimca iyo barwaaqo waa ilaaha noo gargaar ilaaha noogu nimcay marka alxamdulillah waa soo qaadanaa waa iska sii bixinaa alxamdulillah dharka qaymo walba la gadaa mid waa raqiis mid waa qaal waxa way alxamdulillah dharna qaali lagu keenaa dharna raqiis alxamdulillah bulshada waa naga gadataa waa naga iibsataa mi waa nooga imaadaa magaalo waa nooga imaadaa alxamdulillah meel shantareer ahaan fadhinaa handaas ilaahay ku diidan nimca iyo barwaaqo ilaaha noo gargaari meeshan waa ku nimcaysanahay ما شاء الله رجديدا aad iyo aad ay u wanaagsan tahay aad iyo aad ay u weyn tahay hadaas ilaahay ku diidan meeshan email ka sii fogaan rajayna doonaysa in adigu aad yeelato xarun ku gooniah oo ay markaasi dad shaqaalaha ka shaqeeyaan sidee ما شاء الله har iyo habeenan ku hurda har iyo habeenan ilaahay ka tooga wax walbana ilaahay qafuur raxiimka alxamdulillah haayo wax walbana ilaahay baa alxamdulillah ka rajaynayna ma sha Allah tabarakallah taas iyo waliba laba jibaarkeedan filina hadaas ilaahay ii kaso dadka dhalinyarada adiga oo kala talin lahayd inay ku soo biiraan fursadan ما شاء الله waa kula talin lahay dadka tahriibaya dadka wadamo kala aadayo dadka handaas ilaahay ku diidan tabalacaysan dadka alxamdulillah muqaadaraadka ijaadka iyo tubaakada cunaya dadka alxamdulillah iska laclacsan waxa soo dhan inay ganacsadaan oo xoogsadaan oo alxamdulillah ama dhar ha galaan ama wax kale ha galaan oo magaaladooda dhisaan wax walba qabsadaan ayaan kula talin lahay baatiga waxaan gadanaa $2.8 gargarooyinka waxaan gadanaa $1 iyo bar go'yaasha waxaan gadanaa $2 iyo bar kuwa labaan gadanaa $2 waxaan gadanaa doonaysa in ganacsigan uu noqdo mid ما شاء الله waa doonayaa dadkeena inuu ku wada ganacsado ninkii waxaysanin ninkii ilmaha taariibiya inay ka ganacsadaan oo jeclahay waxaan kula talin lahaa inay soo galaan Cabdiwaaxid Maxamed Aadan wararka dalka News TV magaalada Beledweyne.